بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، waxaynu isku baraarujinaynaa ama aynu isku sheegaynaa 10 maalmood ee Dulxajja, 10 maalmood ee bishan xajka lagu jiro. waa 10 maalmood aad iyo aad u khayr badan, faa'iidooyin badan ay ku jiraan. sida Ilaahay uu dhaartay wal fajri wa layaalin 10. Ilaahay wuxuu ku dhaartay subaxa, wuxuu ku xijiyay dhaartiisa hadana 10 maalmood ee maalimaha khayrka badan. maanta ay maalinka koowaad noo tahay oo maalin Axad ah, sida ay taariikhda sheegayso. waa maalimaha ugu khayrka badan adduunka. aana soo marin ilaa qof nasiib lama ogi. sida ay u tahay bisha Ramadaan 10 habeen ugu dambeeyo, habeenaha ugu khayrka badan say u tahay, ay iyadana u tahay maalimaha ugu khayrka badan ee sanadka. marka qofka waxaa looga baahan yahay inuu mar walba ku dadaalo acmaalaha wanaagsan, sida soon qofka soomi kara, inuu qofka salaad badan tugto, sunooyinka badiyo. sida bisha Ramadaan 10 ugu dambayso loo badinayo sunooyinka, adigoo sooman salaadaha sunnada baxsanaysa. waxay ku qiimo badan tahay ugu qayb badan 10 maalmood inuu qofka sadaqa badan la baxo, inuu sadaqa baxsado. wuxuu helayaa ajir aad iyo aad u fara badan. bisha bilaha kale iyo maalimaha kale oo ka qayb badan yihiin 10 maalmood. sadaqada baxsatid waa lagu badinayaa. soonka soontid ajir fara badan ayaa ka helaysaa. salaadaha tukada ajir fara badan ayaa ka helaysaa. waxaa ku jirta 10 bari oo aad iyo aad u qiimo badan. waa 10 bari ee bisha xaj oo dadka acmaasha xajka ay gudanayeen oo la tagay xajka, dadka dhan isku diyaarinaya xajka. laakiin anaga sanadkan iyo sanadka hore Ilaahay cudurkan ayaa dadka u diiday. Ilaahay naga aqbalo, dadka aadan Ilaahay ka aqbalo. Ilaahay naga dhigo kuus Ilaahay u kasoo iyagana aadaan sanadada dambe soo socdo insha Allah. marka waxaa wanaagsan in lagu dadaalo acmaasha la sameeyo 10 bari. waa 10 bari aad iyo aad u qiimo badan oo Ilaahay agtiisa ku weyn, oo Ilaahay ku dhaartay. sidoo Ilaahay ugu dhaartay, wuxuu Ilaahay ku dhaartay waa wax aad iyo aad u weyn, waa wax aad iyo aad u qiimo badan. marka waxaa wanaagsan sida adiga aad u jeceshahay in wax walba wanaagsan lagula wadaago, inaad dadka ula wadaagtid oo dadka u sheegto waxyaabaha wanaagsan. saas aniga idinla wadaagayaa. mar walba waxaa jeclahay inaan wax walba wanaagsan idinla wadaago oo idin soo tago waxyaabaha wanaagsan, wanaageeda iyo khayrka ka wada faa'iideysan dhammaanteena. waa aniga Axmed kana daawanaysa Axmed Soomaali Official. mar walba subscribe-ka noo saara, la wadaag asxaabtaada. iga dhisay meesha maxaa Allah ku rafaasanay ilaa hadda xataa kunka gaar la kunka gaarsiya. la sii wadaag asxaabtaada iyo share gareeysi ani subscribe badan u helo, aad u maasan tahay. insha Allah ku dadaalna acmaasha, abadina salaadaha, abadina soonka. qofkii ugu talagalay sanadkan inuu gowrac sameeyo, inuu wax qalo, waxa u wanaagsan inuusan inuu soomo, inuusan jarin timihiisa, inuu cijihiisa jarin, inuu is ilaaliyo si oo qof sida xaramka joogo kale inuu isku ilaaliyo. sababtoo wuxuu rabaa inuu gowrac sameeyo. marka la gaaro 10 maalinka 10aad ayuu gowrac sameynaya, timaha iska jaraya saas oo kale. laakiin haddii aadan sameyn karin, waxaa wanaagsan in la sameeyo inaad soonto, awood inaad soontid, sadaqa badan la baxid, salaado badan oo sunnah badan aad tukatid. intaas isku dardaarmayna mar walba. waa aniga Axmed mar labaad ku soo celinaya, mar kale iyo mar saddexaad. inta badan subscribe-ka ii saara, la wadaag asxaabtaada. qof walba daawato fiidiyogayga adigoo mahadsan, fadlan subscribe-ka ii saar, like-tana ii saar. aad iyo aad u mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. tabankan waxaa isku dardaarmayna waxyaabaha kale ugu wanaagsan oo la sameyn karo, qofka uu sameyn karo waxaa waaye inuu qofka badiyo dikriga badan, inuu istighfaarta badiyo, inuu saliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam badiyo, inuu la imaado duco badan oo xilliyada ducada la aqbalo. waxaa maalimaha wanaagsan oo khayrka badan inaa mar walba ducada badisid. sababta qof bini aadan aad tahay, Ilaahay waa u baahan tahay mar walba. ducadana waa midda kaliya ee waddo walba ku furi karto, ee ku tusin karto wadada kaliya u baahan tahay iyo waxyaabaha waxa qofka bini aadanka wax walba u baahan yahay ku gaari karo. muruga ku haysato, dhibaato badan ku haysato, wax badan u baahan tahay, Ilaahay gacmaha u hoorso, Ilaahay weydiiso. xilli walba salaada aad tukatid gacmaha u taag, weydiiso Ilaahay waxa u baahan tahay. xilliyada ducada la aqbalo waa laga faa'iideystaa waqtiyada ducada mustajaabada ay tahay, waqtiyada saacadaha mustajaabada la sheegay oo kaleete. xilliga marka waa xilliyada ducada la aqbalay ka mid ah 10 bari. marka ku dadaal inaad ducadaada badisid, inaad duco badan la imaatid, inaad Ilaahay wax walba arabti weydiisatid. Ilaahay khayrka hana waafajiyo, Ilaahay ducada dadka la aqbalo naga dhigo, Ilaahay kuwa xajka Ilaahay u kasana naga dhigo. mar walba insha Allah isku duceynayna idinkan saas kaleete. qof walba la wadaag ducada adeena, qof walba u duceey adeena duceyso, Ilaahay weydii wax walba khayr badan. إن شاء الله. وأنا أحمد كان دارس أحمد صومال أوفيشال. مروا باللايك سبسكرايب كنوسارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي لوبين الدعاء بيسيد يصلى السنة.